ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد آدم محمد aad buu mahadsan yahay masaajidkii calaamataan markii hore sheekha yaan baan moodayay Axmed Yarana uu joogaa oo muadinkii masaajidkaahi marka masaajidka calaamataan oo dhan baa ina soo booqday imaamkii iyo muadinkiiba maasha Allah iyo faaraxo odayaashii saaxiibada iyo macaamiishii masaajidka ila masaajidadu macaamiil bay leeyihiin runtii xafiiskan ku jirayo computerkan gaariga kala soo baxoon dhiganayay waxaan doonayay inaan sheekha ku idhaahdo markii uu soo galayay uu iga soo horgalay markaa intaan xafiiska furay baan haddana ilaaway computerkan ku soo noqdo markaa waxaan islaa sheekha maanta aad ku tiraahdid madaxweynaha oo idinka arkay marka uu dhoof ka simaado ama meel lagu soo dhaweynayo maxaa lagu yiraahdaa mudane madaxweyne salaantaada waxa u diyaara cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka ku soo dhawow maanta waxaan islaad ku tahay sheekh maxamed aadan salaantaada waxa u diyaara arday ka tirsan ardaydii nuuradiin ku soo dhawow maasha Allah waxa runtii hadal ma hadhin oo hadalkii sheekhu inoo dhameeyay saaxiibtinimaduna waa waxaan laga maarmayn qofkuna qofka kale saaxiibkiisa dhaqanka uu kaga daydaa sheekheena inoo dhameeyay jazaahullahu khayr wa barakallahu fiih wa fataha Allahu lisaanahu wa 'azzama ajrahu wa kathara min amthalihi isaga sheekhu inoo dhameeyay waxaan laakiin xasuustay qisaan dhageystay ayaan xasuustay oo aayadda ku qotanta uu sheekhu inagala hadlayay waxaan ka dhageystay nin sheekha oo culimada Sacuudiga kamida waliba gaar ahaan magaalada Jidda la yiraahdo oo masaajid weyn oo jaamica sida Sheekh Maxamed bil Amaara ka masuula masaajidkuna uu leeyahay maqsalad weyn oo maqsala lil amwaat dadka dhintay lagu maydho maqbarad iyo meel xabaalo dadka lagu aasana muxuu haayay iyadana masuulkaad iyo jeer xaafada dadka lagu aasayo qaybta ka masuulka ayaa qisadan ka sheekeeyay wuxuu yiri nin aniga xafiiska fadhiya ayaa leegu yiri sheekh waxa la keenay meyd baa la keenay kaalayo admeydide tabadna wuxuu yiri waan sidii dabiiciga ahayd baan kacay markii aan kacay ehelkiisii iyo qaraabadii iyo wixii baa ku jiray gudii waxaan ugu galay dadkii meydka dhigay oo nin xanaaqsan aad mooday inuu xanaaqsan yahay baxa dhammaantiin baxa aniga mooyee baxa wuxuu waan yaabayo waxaan siri talow ninkan dadkii kale oo dhan wada saaraya malaha waa walaalkii ama waa magaranaysa meydka waabihii ama tabadna wuxuu yiri waan baxay qolkii meydkan ku jirnaa meel yar oo ii gooniyo dharkaygana aan dhigto dharka meydka aan ugu tala galay inaan ku maydhana ayaan soo xidhay galoofiskii waxaygii inta diyaarsanay ayuu dadkii wada saaray dadka qaar baa bariyo le ma anigu aan kula joogo maya baxa markii aan u soo galay baan ku yidhi ma kaliga ma cid kale inuu baahanahay meydka inala qabata oo inala diyaarisa oo de inala maydha wuxuu meydka wali daboolka kamaan qaadin iyo maradii la huwiyay dabadna wuxuu yidhi may buu yidhi sheekh waa anigoo kaliya dabadna waxaan ku yidhi buu yidhi waayay waan bilownay sidaa markii aan uga qaaday go'ii meydkii ayuu qaylo aan nooceedu caadi ahayn ku dhuftay buu yidhi aad buu u qayliyey maaha meydkii ninkii noolaa ee dadka kala saarayay ayaa qayliyey dabadna wuxuu yidhi waxaan ku yidhi waa la wada dhimanayaa halkani waa halkaynu ku wada dambaynayno isagana u ducee qaylo iyo buuq waxba tari maayo qalbigaaguna xamili maaye
walaalaha kale aan u yeedhay ee ha soo galaana adigu bax may buu yidhi anigaa kula maydhay waayahay baan ku yidhi haddana mar labaad ayuu wuxuu yidhi markii aannu isnidhi bilaaba ayuu sidii oo kale wuxuu yidhi waan fajaco waxaan yidhi waa ninkan maxaad isu tihiin horta dabeedna wuxuu yidhi sheekh wax weyn baannu isunnay ma walaalaad tihiin may walaalo ka badan baannu nahay ha ma adiga maxaa ka badan ma adigaa dhalay ma dhali karo waa nin isleegyihiin ma adiga dabeedna wuxuu yidhi maya sheekh waxaasoo dhan wax ka weyn baannu nahay oo maxaad tihiin wuxuu yidhi laba aqaloo isku xiga ayaannu ku kala dhalannay jaar baannu ahayn welibana sida waalidkayagu noo sheegay gelinkii hore iyo gelinkii dambaannu kala dhalannay isku da' baannu nahay meel baannu ku soo wada kornay waalidiinteedu saaxiib bay ahaayeen labadeeda aabbo iyo labadeeda hooyaba saaxiib bay ahaayeen annaguna saaxiib baannu noqonnay madrasad mida baannu ka wada baxnay dugsi hoose dhexe sare meel baannu ka wada baxnay jaamicad baannu wada gallay jaamacadda isku kulliyad baannu ka wada baxnay waxaannu noqonnay baayac mushtari shuraako wax wada yeeshay baannu noqonnay laba habloodoo walaala'a baannu kala guursannay labadeeda xaas xataa walaalay ahaayeen wuxuu ahaa noloshayda oo dhan rafiiqaygii iyo saaxiibkaygii runta ahaa dabadeedna wuxuu yidhi waxaan ku yidhi de inna lilaahi maa akhada walahu maa acta ilaahay baa dee saaxiibkaa ku siiyey wuxuu yidhi qur'aankaanu wada xifdinay weliga iyo khayr mooye xumaan isumaanu kaashan wanaaggaa iyo khayrkaas waalidkii saaxiibka ahaa nagu soo barbaariyeen ayaa annagana ilaahay magaranaysaay bartii nooga sii bilaabay oonu ka sii wad wuxuu yidhi waannu aasnay maydkii waxaannu ku aasnay maqbaradii iyo qabuurihii meel nambar baannu ku aasnay wuxuu yidhi masaajidkaa aan joogo iyo meelaha qabuurahaan mas-uulka ka ahay ma dhacda buu yidhi maalintii in aan shanta salaadood buu yidhi shanta salaadood inaan salaad walba jinaasad la keenin oon lagaga tukan oon qabuurahaana la geynin ma dhacdo waa ilaahay cilmigiise maalintaa waxaannu aasnay oo keliya ninkaas waxa rawaxay dadkii dee qabrigii waa laga tegey waxaa la yidhaahdaa xabaaliya ninkeed loo kala teg waa kuwa soomaalidu yidhaahda sidii buu allah yarxamu ku geeriyooday oo qabrigiisii iyo gurigiisii runtaha lagu dhigay waxaa cajiiba ninkii saaxiibkiina markuu gurigii tegey ayuu intuu fadhi ku fadhiistay fadhiyadan yare gaagaaban ayuu sidaa u jiqilaystay in yar ka bacdina halkii bay naftu kaga dhacday waxaana lagu aasay qabrigii ku xigay waxa u dhaxeeya uun qabuuraha sacuudiga sida loo sameeyo dhowr jeer ayaan tegey dabadeedna waxaa la samaynayaa waa la dhisayaa sidii binaadoo kale loo dhisayaa gidaar yar baa u dhaxeeya labada qabri gidaar yar ayaa u dhaxeeya xaggaana saaxiib bay ku noqdeen oo waa kuwa dee jaarkii ayay noqdeen allaahu akbar wayaa lahaa min suxba saalixa alla saaxiibtinimadaasoo kale fiicana oo wanaagsana sheekh maxamed markuu madrasadda ka sheekeeyey ee uu ciyaalnimadiisii ka sheekeeyey ayaa waxaan xasuustay anigoo yar masaajid baa noo dhowaa masaajidka saddex masaajid baa xaafaddeeda u dhowaa burcaan anigu deganayn oon ku koroon ku barbaaray saddexda masaajid midi jaamicii weynaaye burcu ahaa midina masaajid kaloo qaadiriyada oo magaranaysa ayuu ahaa ama haddaan si kale u sheego sheekh cismaan nuur oo sheekhalbeledka magaalada ah ayuu ahaa midna masaajidka saalixyadaa la odhan jiro iminka masaajid weyn baa laga dhiso ilaa halkii malcaamadda aan ku dhigan jirnay ilaa meelo faarada iyo guryo ka horreeyey inta laysku wada ayaa masaajid weyn oo jaamica laga dhigay waa burco marka masaajidkaas
waxa ay saalixyadaaba la odhan jiray saalixyadu firqad bay ahayd dee culimadii ka mid ah marka waxa la qaadi jiray qasiido marka salaada fajr laga baxo quraanka waa la subcin jiray halka inta saa loo soo wareego ayuu qofba beej akhriyi jiray dabadeedna hal bogoo quraana ayuu akhriyi jiray sidaas loo wareejin jiray marka la dhameeyo waxa la akhriyi jiray qasiido la yiraahdo wasiyatul ikhwan anigoona carabiga aniguna garanaynin sida Sheekh Maxamed ayaan dhakada ka qabtay laano subax kasta ilaahay naxariis jannaha siiyo hooyadeeba intay kiciso odhan jirtay macallinkaygii de quraankana uu ahaa Sheekh Aadan ilaahay u naxariisto ayaa ay odhan jirtay orodoo subax ka qayb galo halka fadhiiso طيب waxay ahayd waxa ku jirtay marka qasiidada la yiraahdo wasiyatul ikhwan waxa ka bilaabmaysaa uusiikum ya ma'shar al-ikhwani sida aanu akhriyayna looma akhriyaye qasiidada si qiiro leh oo qalbiga taabanaysa uusiikum ya ma'shar al-ikhwani alaykum bid'ati dayani saasa loo akhriyi jiray waxa ku jiray واختر من الأصحاب كل مرشد إن القرين بالقرين يقتدي صاحب هذا واحد دورتا صاحبك واحد دورتا كوناكسنه waxa fiican kugu hagaye kugu hanuuninaya sababtuna wax kale ma aha saaxiibkiisa ayuu ku daydaa dhaqanka iyo akhlaaqda iyo sida uu u socdo iyo sidoo uu fakarayo saaxiibku ka qaata يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وشليته يو برور أن وحبة ترينين إلهي باينو شاقي سوماها أن وحكو جرتي فصحبة الأخيار للقلب الدواء تزيد للقلب نشادا وقوة ذاتك وناكسن لساحيب الدودو وحي قلبك أطهى الدو يفر فرعوني أي قلبك السيسا وصحبة الأشرار داء وعمى ذاتك أشرارتا شر وضياشا صاحبك ديغشدودنا وحويان وعذر يندلان تزيد للقلب السقيم سقما قلبي أول بحنون سنيي ما مغشانيغو ooyay weyliigu joogsatay qalbigii awal baxanuun sanayay ayay cudur iyo xanuun kale u sii kordhisay arday saaxiibtinimadiina la idin kala hadlay si weyn u guntada saaxiibka xunina iminka hadii uu qof ahaan jiray de halkan waxa ku jira malaayiin adduunyada cidifyadeeda jooga sa sheekhu idin sheegay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu waanooyinka faraha badan ee maalin walba halka la inaga siinayo xiisada ka muhiimsan xiisadaha oo dhan xiisada ugu qaalisan xiisadaha aynu qaadano waa xiisada aynu halka daabuurka ku qaadano ilaahayna hayna garansiiyo oo hayna fahansiiyo istimaa'ul ayn ishu waxbay dhigaysataa miyaa taqaanaan weliga ay allaha qof aad hadalkiisa xiisaynayso qof kale ma iskaga ka gudbay maxaa tiraahdaa naga baneed aanu eegne haduu macallinka aad jeceshay xiisa ya macnaheedu waa maxay markaad foorarsato eed garkiya labada law hoos isugu geyso macnaheedu waa maxay ma waa khushuucsan oo waan dhageysanayaaba dhaqanka iyo bini'aadamku iyo tabiicadiisa aanay ahayn ilaahayna wada fahansiiyo